waxay ku jiraan diyaargarowga tartanka jaamacadda carabta. waa kooxda kubadda cagta Horseed. waxay tartankan ay ka qaybgalayso jadwal ahaan ay heshay gruubka E, waxayna isku gruub noqdeen kooxda kubadda cagta Horseed, Al Sayd oo Qatar ka dhisan, Rajab oo Morocco ka socoto, iyo koox ka imaanaysa Bahrain. Horseed ayaana tartankan lagu daafurayaa. 1986 ayaa ugu dambeysay in kooxda ay safar dheer gasho, laakiin kooxda ayaa wadato ciyaaryahano iyo macallimiin siyaabo kala duwan u safray. Macallin Cabdijoon ayaa sheegay in tartanka jaamacadda carabta uu soo ciyaaray isagoo ciyaaryahan ah, si la mid ah uu ka qayb galay isagoo macallin ah. sideese ugu diyaar garoobeen? Astaan Sports ayuu ugu warbixiyey. runtii diyaar garowgeena aad u fiican yahay, waana markii labaad ee aan hogaaminayo koox carabta u socoto. anigoo playerna waan soo ciyaaray oo qaramadan ku soo ciyaaray, marka run ahaantii inaan Horseed hogaamiyana wax weyn ay iga dhigan tahay, maadaama ay tahay Horseed kooxaha ugu faca weyn ee wadanka. ciyaaraha jaamacatul carabna ay hore uga qayb gali jirtay, uguna dambeysay 86. run ahaantii kooxda Horseed sanadkaana waa ka dareemi kartaa bandhiga ay soo dhigtay, maadaama ay haystay ciyaartooy aad u da'yar oo aad u awood badan, kana qayb gali karta tartanka. waajibaadka tartanka uu leeyahayna ee maaragtay run ahaantii aad iyo aad waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan aan ka keeni doono haddii ilaahay diyaar garowgeena aad u fiican yahay. kooxdu waxay ku xareysan tahay xeradeeda oo maxay ahayd kalaabka ay leedahay oo ku yaala marinada. runtii tababarkana maaragtay waqti fiican aan bilaabay, muddo waxaan wadnaa 1 bil ah, maadaama horyaalka ay ka nasteen waqti dhow. runtiina 10 beri ay ka nasteen, kadibna aan bilaawna maaragtay muddo 1 bil aan wadna tababarka. safarkeena uu gabagaba yahay, ciyaartooy badan ay national teamka nooga maqan tahay. runtii diyaar garow aad u fiican aan sameynay. wallahi record fiican aan ka haystaa, khaasatan anigoo macallin ah. runtii waxaan ku soo haray xataa qorituurana lagu soo reebay. kulamadii aan dheelina nalagama badinin, darowaan soo galna 2 kulan. runtiina waxaan jeclahay recordkii aan hore u haystay inaan recordkan aan wax badan ka bedelo hadda, maadaama aan wato koox xoog aad u xoog badan oo ciyaartooy da'yar oo national teamkana ku badan. waxaan ugu cusub Anwar, Nicholas-ka inay dhahan oo gaadiidka u dheelayay. waxaa kaloo nagu cusub muxuu ahaa Shiine Aymon, muxuu ahaa Iborteri aan soo wadno haddii ilaahay yiraahdo maaragtay waa ajnabi asagana insha Allah. safarkeena wuxuu ku aadan yahay adiga 12 ilaa 18 inta u dhaxayso. tartankana wuxuu furmaa, anaga waxaan ku jirnaa group A. group A na waxaan kula jirnaa Al Sayd oo Qatar ah, iyo Rajab oo waxa ah maxayd Morocco, iyo koox Bahrain ah. saddexdaas kooxan group ku jirna, anagana furayna tartanka. waxaana laga yaabaa inaan dheelno 24 bisha. sidoo Macallin Cabdijoon tilmaamay, waxaa jira tiro ciyaaryahan oo safarka ku weelin doono kooxda kubadda cagta Horseed. waxaa xidigaas ka mid ah Nicholas Kagame oo gaadiidka ka tirsan, Ayman oo midnimo ah, Anwar Sida Cali Sekundo oo Elman qayb ka ah, iyo xidigo kale oo ajaanib ah oo wadanka soo gaari doono. Anwar Sekundo ayaa astaan u sheegay in kooxda uu wax badan ka caawin doono safarka uu dhawaan la galayo. والله ما شاء الله وكل ويا ستان سبورتس دريموسين علمينتدا aan hayno juhdiga badan aan bixinoono halaasna waxaan u sameeynaa yani kooxda Horseed sa umba meel aan ku gaar lahayn. waxa way baxaan safaraha af Ibraan la soo noqdaa. waxaan rajaynaynaa sanadkan wax ka duwan inaan keeno insha Allah. kooxaha bixisana saasoo kale aan rajaynaa kan wax ka duwan sanadkan Soomaaliya la keeno. wallahi koodii way ku mahadsan yihiin, inkastoo ay soo wacdeen, anigana waxaan gelinayaa juhdigeyga halaha awoodeeda ee waan u gelinayaa tii ilaahay meel bay ku taalaa, laakiin insha Allah intii tabarteeda ee waan dadaalayaa. Cabdullaahi Cali Bile oo ka mid ah xidigii sanadkii ugu dambeeyay tartankan soo ciyaaray ayaa ka sheekeeyay awoodda tartankaas. si fiican waa dhawahay, waa maasantahay Daaraq. tartanka jaamacadda carabta waaye. markii ugu horeysay waan ka qayb galay, horaan ugu qayb galay anoo markaas ka tirsan kooxda degada. si fiican aan u aqaanaa in badan, inkastoo hadda waxyaabo badan laga bedelay oo kooxihii xataa si hore loo bedelay. awal 3 kooxood ka qayb gali jireen oo groupooda ahaan jireen, hadda qaabkii hore waa la bedelay. hadda kooxo carab ah si toos ugu dhaceena. awal waxay ahaan jirtay koox Comoros ka socota iyo koox Djibouti ka socota iyo koox Soomaali ka socota. si fiican aan u aqaanaa, inkastoo xoogaa ay isbedeleen. waa garanaynaa. والله رجالنا هذا في عنتها سيف عنا وديار قروني ومدبل يبر عن سوى إنه هذا هو هذا هو هريان نقدر ما ذكرت أنه ديار سنتها already
insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax fiican ka keeno tartankan. Hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee Horseed Kabtan Nuuni Haashimi ayaa dalbaday in taageerayaashu ay dooco ugu soo kaalmeeyaan maadaama uu sheegay in horyaalka Soomaaliya ay matalayaan. maasha Allah runtii daarqaada oo maasantahay Astaan Sport aad salaamo runtii tartan aan diyaar garoobeyna sida wada ognahay maasha Allah diyaar garoobeyna aad u fiican yahay maasha Allah waan diyaar garoobeyna maasha Allah wala kooxda mar la xareeyay sida wada ognahay dadaal fara badan maamulka iyo macallimiinta kulli wada sameeyeen ciyaartooyda intaba tabar fiican aan qaadanaa maasha Allah xiradan ku wada xareysanahay wallahi runtii safarkiina midkan ugu horeeyay naadi Horseed bixiyso runtii waxaan rajaynaynaa guul soo hoyno iyo kubad lagu farxo insha Allah waxaan ummad Soomaaliya ka rajaynaynaa faataxan soo kaalmeeyaan saanigan guul oo keen Horseed ayaa sanadkan kaalinta labaad ka gashay kala sareynta horyaalka Somali Premier League waxaana horyaal ka qaaday kooxda kubadda cagta ee Dekedda oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ku guuleysatay.